magaciisa waxaa la odhan jiray Napoleon Bonaparte. waxa uu ku dhashay jasiirad Faransiisa oo dhacda bartamaha badda Mediterranean-ka oo la dhaho jasiiradda Corsica. waxa uuna dhashay 1969 miilaadiga. qoyskiisu ma ahayn Faransiis dhalada ee waxay ka soo hayaameen Talyaaniga, balse aabihii Bonaparte oo ahaa qareen maxkamadeed ayaa maamuus ku dhex yeeshay waddanka Faransiiska. taasina waxay u fududeysay Napoleon inuu wax ka barto dugsiyada military ee dalka Faransiiska. tababarro badan oo uu qaatay waxa uu ku caanbaxay maskax badnaan iyo geesinimo. markii uu tababarka dhamaystay waxaa loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada madaafiicda. waxa uuna ku sii dhex jiray noloshiisa askarinimo ilaa kacaankii Faransiiska. intaas kadib waxa uu waddanka Faransiiska qabsaday, noqdayna imbaradorkii Faransiiska sanadkii 1804 miilaadiga. waxa uuna horseeday intuusan kursiga qabsan ka hor ololayaal dhowr ah oo guuleystay intii lagu guda jiray dagaaladii kacaankii Faransiiska. markii uu xukunka qabsadayna waxa uu hogaaminayay dagaalo taxano ahaa oo isaga loogu magac daray oo la odhan jiray Napoleonic Wars. waxa uuna ku qabsaday dagaaladaas dalal badan oo Yuruba, gaar ahaan dalalka hoose sida Switzerland, qaybo badan oo ka mid ah Talyaaniga iyo waliba Jarmalka. waxa kale oo uu dagaal ku soo qaaday waddanka Masar si uu uga furomoroojiyo Ingiriiska oo waqtigaas kumaysanayay, balse dagaalkaas uu ku guuldareystay. waqtigii uu Napoleon Faransiiska xukumayayna waxa lagu ammaanaa xukun wanaag iyo inuu ahaa nin aad u horumar jecel. deegaanadii uu haystayna u horseeday badhaadhe. sidoo kale wuxuu dejiyay xeerar la dhaho xeerarka Napoleon oo ilaa iyo maanta Faransiiska lagaga dhaqmo. xeeladihiisii dagaal iyo qaab ololihiisiiba waxaa lagu bartaa maanta kulliyadaha military ee caalamka oo dhan. marka aynu ka nimaadno hordhacaas kooban ee ku saabsan nolosha Napoleon, waxa aynu isla eegi doonaa murtiyihii iyo xikmadihii dhaxalgalka ahaa ee ninkan laga qoray intii uu noolaa. inkastoo ay aad u tiro badnaayeen odhaahyada ninkan taariikhda u galay, haddana waxaynu ka soo qaadan doonaa 40 odhaahyood ama xikmadood ee ugu saamaynta badnaa. odhaahda koobaad: ma dhici karto. ereyga ma dhici karto waa erey laga hela qaamuuska nacasyada. 2. waa inaad la dagaalamin cadowgaaga marar badan, haddii kale waxaad bari doontaa dhammaan taatikooyinkaaga dagaalka. 3. diinta ayaa ah midda ka celisa masaakiintu inay dilaan maalqabeennada. 4. midhaha guusha waxaa iska leh oo guran doona kuwa ugu samirka badan. 5. weliga ha ka dhexgelin cadowgaaga marka uu qalad samaynayo. 6. haddii aad rabto in wax si fiican lagugu qabto, adigu qabso. 7. taariikhda badankeedu waa been lagu heshiiyey. 8. dhimashadu waxba maaha, balse inaad jabto bilaa sharafna aad ku noolaato waa dhimasho maalin walba taagan. 9. rabitaanka xoogani waxa uu soo gaabiyaa masaafooyinka. 10. hogaamiyuhu waa hantiilaha iyo didiilada haya. 11. fulay keliya oo ku jira ciidankayga ayaa igaga xanuun badan 10 askari oo masoo jeestayaala oo ku jira ciidankayga soo horjeeda. 12. weerarku waa habka keliya ee la isku difaaco. 13. dhufayska ugu adag ee aad geli kartaa waa gabadha wanaagsan. 14. qofka waddankiisa khiyaama waa sida cunug aabihii lacag ka xaday oo tuugta u geeyey, oo aabihii weligii ma cafinayo, tuugtuna abaal uguma haynayso. 15. muusigu waa cod mucjiso ah oo sheegaya in isirka aadamuhu ka wan yahay inta la og yahay. 16. weligii dhalinyaro ayuu ahaanayaa ninku haddii uu haysto gabadh jecel, isaguna uu jecel yahay. 16. dawada ugu wanaagsan ee jidhku waa maskax degan oo xasiloon. 17. askarigu waa ninka keliya ee naftiisa u huraya si nigatiin yar oon midabo leh loogu abaalmariyo. 18. ummaddu haddii ay bilaadiin tahay waxay ka dhigan tahay sida doon badweyn dhex hehaabaysa oo bilaajiheeye ah. 19. dagaalku waa sida jacaylka oo kale, si looga gungaadhana waxaa lagama maarmaana in la iswaajaho. 20. ragga waxaa laga soo galaa 2 meelood oo keliya, waana cabsigelin iyo dana shakhsiyadeed. yacni nin haddii aad wax ka rabto, cabsigeli ama isaga waxay dani ugu jirto u sheeg. 21. waxa uu leeyahay Napoleon: cabsida aan ka qabo 3 wargeys waxa igaga daran tahay cabsida aan ka qaadi karo 1 geesi oo aan waajaho. 22. faqriga iyo ciilitaanku waa iskuulka askariga wanaagsan soo saara. 23.
qaabka ugu habboon ee aad dhibaato kaga bixi kartaa waa inaad isla dhibaatada sida dhooqada u dhex qaaddo oo aad ka gudubto. 24 haddii uu rabitaankaagu kaa dhab yahay irbad ayaad ceel ku qodi kartaa. 25 siyaasad haddii aad faraha la gasho weligaa ha ka laaban, weligaana qalad ha qiran. 26 qofka wanaag u sameeya si uu ugu soo caanbaxo ayaa ah ka duulinimada iyo doqonnimada ugu dhow. 27 ilaa aad fidiso baalashaada wax fikrada kama helaysid inaad duuli kartid. 28 asxaabtaada ula dhaqan sidii inay berri ka maalin cadowgaaga noqon doonaan. 29 malaha ama imaginationka ayaa ah waxa dunida xukuma. 30 boqorradu dadka waxay u arkaan agab la isticmaali karo. 31 haddii aad doonayso sirtaadu inay si fiican u faafto dhegta ugu sheeg mid ka mid ah gabdhaha qurqurxoon ee jooga baararka Paris. 32 askartu waa kuwa ku madha dagaalka ee guusha gaadha, hogaamiyayaashuna waa kuwa abaalmarinta ugu sarreysa qaata iyaga oon kursigooda ka kicin. 33 adduunku maalinka uu hoogaya waa maalinka uu Maraykan ugu taliyo dugaagnimada uu dimuqraadiyadda ku sheegayo. 34 laba awoodood oo keliya ayaa dunidan ka jira waana seefta iyo qalinka. 35 askar ajaanib ah ayaa dowladdiina idiin ilaalinaysa, weligeed shacab xor ahi ma aqbali doono. 36 ninka niyadiisa ku quflay guuli ma aqbali doono ereyga ma dhici karto. 36 in yar ka fiirsan marka aad saaxiib xulanayso, balse 2 jeer ka fiirsan marka aad bedelayso. 37 tuugta ugu xun xukunku ma qabto, waana tuugta waxa dunida ugu qaalisan xadda waa waqtiga. 38 hal sawir oo lagu tusaa waxa uu kaaga filan yahay wax kun erey lagugu fasiri lahaa. 39 isaga siib walwalka iyo murugada sida aad maryaha isaga siibto marka aad gurigaaga timaado. 40 laga yaabaa in dadka maamuuska leh aakhirka la dilo, balse weligood hanjabaadda kama cabsadaan. kuma koobna xikmadaha ninkani intan oo keliya, balse intani waa intii aan u arkayay inay ugu muhiimsan yihiin oo aan ka soo xushay xikmadihiisa afkayna hooyana inoogu soo turjumay. barnaamijka dhaxalka xikmaduhu waxa uu noqon doonaa taxane aynu ku soo qaadan doono oo dhahyadii ugu caansanaa ee laga qoray dadyowgii ugu caansanaa ee dunida soo maray. halkan ayuuna inooga bixi doonaa maalmaha soo socda insha Allah. haddaba si aad ula socoto muuqaalada tayada iyo tirada badan ee aanu bartan ku soo gudbino daawade, waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka, muuqaalkana like garayso, siina share garayso haddii ay macquul tahay. sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.